Ethiopia ma garanayo sida maxaan ku dhahdaa aqoontiinu tahay waxa iiga horeysay nin hadda si fiican Ethiopia gudaheeda looga yaqaano kaadiriinta waaweyn oo markaa aniga macallin ah ayaa maalin galaaska aan dhiganay buu soo galay dadna projector buu ku qabtay sabuuradda waan hayaa proposalka computerkii ku jira proposalka waxa ku qoran maamulada Puntland iyo Somaliland oo soo codsaday inay Ethiopia ku beeraan proposal wakaalada wararka Ethiopia rasmiga ah baa warka lagu daacay dabeedna galaaska lagaga dooday niman xabashiin soo galaasay midba waxa uu argagixisay leeynahay inaga maqnaadaan waxba yaana inagu soo beerin mid kale wuxuu dekada wanaagsan bay leeyihiin ha inoo yimaadaan dekodoodii waxoodan ka qaadanaa doodii oo lagu gudo jiraaba inaan saaxiibno waxa xabashida kamid ahaan galaaska wada dhigno halkan fadhiya ayaa wuxuu igu yiri sidee baad u aragtaa dood dadana waxaan ku yiri waxba kama jiraan erey buu markaa aan nood galay wuxuu yiri it's already shaqadan waa dhamaatay adaan wax ogeeyna bal dadkii meeshii joogay la hadal way soo socdaan way noo imanayaan adaan war haynin doodaas waa ii horeysay markii xiisadii dhibaatana macallinkii waxaan ku dhigay doodii markii aad ka sheekeynaysa maxay ahayd halkan uu soo fariisiyay wuxuu igu yiri markii aad Soomaali weyn raadinayseen aduu reer Hargeysa toban ku aqaana markii aad Soomaali weyn raadinayseen iyadoo Hargeysa ay biyeela adahay soo meydaan dadka ku oran jirin shantii Soomaaliyeed baan midaynayna dadna dadku soo sacabka may garaaci jirin xaqiiqduna waa sax wuxuu yiri anaga hadda Ethiopia dhexdeeda waxa ka socda secessionist badan baa jira oo raba in Ethiopia ka go'aan si dooda loo caburin karo waa in la yiraahdo dalalkii gobolka oo dhan inaga inagu soo socdaan oo inaga la inoo soo socdaayo maxaan ku rahay hegemony xagee u sii kala socotaan waa in fikirka la abuuro safarkii Barack Obama sheekadaas waxaan markaa Soomaalida geeska Afrika joogtay oo Barack Obama Nairobi iyo Addis Ababa iyo si fiican ugu dabaaldegayso oo Mareykankii urtiisii uu inaga soo ag dhawaaday gabayga ama kaagu wuxuu ku socdaa markaa sheekadaas taxliilka siyaasiga ayaan ka sheekay wax kamid ah wuxuu in dhaweydba